السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa lagu tiriyaa caleenta shaaha Lipton noocyada caleenta shaaha ee ugu wanaagsan dunida waxayna caleenta shaahani ka mid tahay wax soo saarka shirkadda Lipton taa oo wax soo saarkeeda lagu yahay caleenta shaaha inkastoo kolkii dambe ay ku soo kordheen wax soo saarkeeda cabitaano kulul iyo kuwa qabow sidaas daraaddeed shirkadda waxay soo saartaa waxyaabo tayo sare leh oo bulshada badankeeda aad u jecesha isla markaana iibsato waxaana shirkaddani aasaasay ninkani oo lagu magacaabo Thomas Lipton wuxuuna ninkani ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan dalka Ingiriiska iyo Mareykanka haddaba ninkani ayaan kaaga sheekayn doonaa qisada guushiisa iyo sida uu ku bilaabay shirkaddani maanta suuqa shaaha caanka ah wuxuu dhashay Thomas Johnson Lipton 10kii bishii May sanadkii 1848 wuxuuna ku dhashay isla markaana ku soo barbaaray Scotland UK wuxuu gelinka dambe ee maalintii wax ka baran jiray iskuul ku yaala deegaankooda gelinka horena wuxuu caawin jiray aabihii oo ahaa shaqaale hoose Lipton ayaa yaraanta ku shaqo bilaabay wuxuuna ka shaqeeyay shaqooyin tiro badan oo kala duwan wuxuu ahaa Lipton yaraantiisii cunug aad u xiiseeya safarada dhanka badda jaceelkani oo asagoo 15 sano jir ah ku kalifay in uu dekada ka noqdo xamaali dooma karara Lipton ayaa si aad u xiiseynayay shaqadani xamaalnimada waayo maalin kasta wuxuu arkay biyaha badda iyo doomaha u kala gooshaya dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka wuxuuna mar kasta wareysan jiray dadka imaanaya dalka Mareykanka taa oo Lipton ku keentay inuu jeclaado magaalooyinka Washington iyo New York waxaa markii dambe Lipton u soo gashay inuu u safro dalka Mareykanka wuxuuna tagay magaalooyinkii aad ku jeclaa wuxuuna dalka Mareykanka joogay muddo 5 sano ah asigoo ka shaqeeyay shaqooyin badan oo kala duwan mar wuxuu ka iibin jiray bulshada qudaarta iyo miraha laga soo guray beer ku tiilay wilaayada Virginia mar kale wuxuu xisaabi u ahaa milkiile beer biriiska lagu tacbo iska lahaa kuna tiilay wilaayada koonfurta Carolina kadibna wuxuu isku bedelay beerley way anfici weysay beerleynimadaasi kadibna uu isaga tagay wuxuuna galay magaalada New York asigoona shaqaale ka noqday dukaan intii uu shaqaalaha ka ahaa dukaanka kuma ekaan jirin in uu macaamiisha dukaanka imaanaysa wax ka iibiyo laakiin wuxuu badeecada macaamiisha ugu geen jiray guryahooda asigoona albaab kasta garaaci jiray isla markaana u soo bandhigi jiray badeecadiisa Thomas Lipton ayaa sanadkii 1870kii ku soo laabtay dalkiisa hooyo Ingiriiska 2 sano kadib wuxuu furtay dukaan isla markiiba dukaankii yaraa wuxuu ka helay faa'iido badan muddo yar kadib wuxuu furtay tiro dukaano ah oo gaaraya 300 dukaan wuxuuna magac ugu dhigay Lipton 17 sano kadib oo ku beegan sanadkii 1888 waxaa batay dalabaadka caleenta shaaha taa oo Thomas ku qasabtay in uu galo suuqa caleenta shaaha isla markaana ku maalgeliyo wuxuu lacag haystay ganacsiga caleenta shaaha wuxuuna markaasi aasaasay sumadani ganacsi ee Lipton wuxuuna hore u sii galay suuqa shaaha asigoo dadweynaha caleenta shaaha qiimo macquul ah kaga iibin jiray si uu Thomas ganacsigiisa u hormariyo ayuu u safray sanadkii 1890kii dalka Sri Lanka oo ah jasiirad dhacda waqooyiga badweynta Hindiya wuxuuna halkaan heshiis ganacsi kula galay rag ka tirsan maalqabeennada dalkani Sri Lanka dhan kalena wuxuu beer caleen soo saartay ka iibsaday nin ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray James Taylor kadib markii Thomas Lipton gacanta ku dhigay beertani waxaa si xoog ah u koray ganacsigiisa caleenta shaaha waxaana u soo gashay in uu la wareego suuqyada caleenta shaaha ee caalamka gaar ahaan kuwa Yurub iyo waqooyiga Ameerika Lipton ayaa ahaa nin aad u xiiseeya tartanka doomaha wuxuuna intii u dhaxaysay sanadihii 1890kii ilaa 1930kii 5 jeer ku guuleystay koobka Mareykanka ee tartanka doomaha sharciyada dhaadheer waxaa xusid mudan tartanadii la qabtay sanadihii 1908 iyo 1911kii in loogu magac daray Lipton taa oo keentay in ganacsigiisa shaaha caan ka noqdo gudaha dalka Mareykanka Lipton ayaa fududeeyay isla markaana lacag ku bixiyay tartan dhex maray dalalka Argentina iyo Uruguay Lipton ayaa saaxiib la ahaa labada boqor ee kala ah Edwardkii 7aad iyo Georgekii 5aad Lipton ayaa in badan ka faa'iideystay xayisiin uu sameeyay wax soo saarkiisa dhanka caleenta shaaha ilaa kolkii dambe Lipton ku soo baxday sumad ganacsi oo caalami ah Lipton ayaa fududeeyay ciyaaro badan oo kubadda cagta ah Thomas Lipton ayaa taageero maaliyadeed siin jiray ururada caafimaad intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka waxaana Thomas Lipton 3 November sanadkii 1924 lagu soo daabacay sawirkiisa joornaalka caanka ah ee New York Times taa oo sababtay inay kor u kacdo shacbiyadiisa Lipton ayaa ahaa nin bulshaawi ah wuxuuna geeriyooday 2 Oktoobar sanadkii 1931 wuxuuna ku dhintay magaalada London asigoo dalkiisa iyo dadkiisa ugu tagay sumcad wanaagsan ee imbaraatoriyada shaaha ee Lipton